diyaaradan oo siday wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa ka soo degatay gegida duyuuradaha ee Garowe General Maxamed Abshir. Wafdigan uu horkacay wasiirku ayaa isugu jiray wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka Puntland, haween, dhalinyaro iyo cuqaal. ugu horeynba waxaa qaybta nasashada garoonka ku soo dhaweeyay wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Mudane Ilyas Cismaan Lugotor. waxaa farxad weyn oo inaan halka ku soo dhaweyno wafdiga dowladda federaalka nooga yimi ee hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdirasaaq Abubakar iyo wasiirada kale iyo madaxda kale dowladda federaalka ee la socota wasiirada dowladda federaalka ee dowladda Puntland iyo xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladda Puntland taliyaha ciidanka badda iyo dhammaan marsharafta kale halkan isugu timi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. معي وزير أديك وفتجاجة وحنا نسوي دوينا كوريجيني بوتلان قلب الفرن رنتي وفرصة ذهبية نقطة حلقة مهم كأه ما تنكينه ومارتي سيرة بين دي سوي دوينا وحنا إلى تهاي وفتجنا وحرلعوا هاي برامج سرك الدولة الفدرال إيمان دونا بريتو مركا سوي هذا وزير وإن شاء الله تعالى وحين تقدم بيا سوريسي يمارتي بينو كل دونا وعن هالكن وعن كلمة كوبنا سوي دوينا. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa ugu horeynba ka mahad celiyay soo dhaweynta maamuus kale loo sameeyay, waxaana wasiirku sheegay inuu jeedka socdaalkooda hordhac u yahay safar Puntland uu ku iman doono ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo tan iyo intii la magacaabay safarro haatan ku maraya maamul goboleedyada dalka. waxaan aad uga mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran oo waliba ay ku jirto lahajaalada iyo kalgacaltooyada aan dareemi karno wajiyo badan oo aan garanayno oo halkaan nooga wada hor yimid. runtii aadan ugu faraxsannahay inaan aragno ku soo laabanno Puntland annagoo maanta ka ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. soo dhaweyntaas kadib waxaan nahay oo hordhac u nahay safarka uu ku imaan doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo socdaalkiisu uu yahay mid uu ku marayay gobolada maamul goboleedyada dalka oo uu haddaba ku tagay gobolka Koonfur Galbeed dowlad goboleedka Koonfur Galbeed haddana ku imaan doono Puntland kadibna uu halka uga sii gudbi doono Galmudug. socdaalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaan doonaa mid aan rajaynayno inuu bog cusub u furo wada shaqaynta maaragta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. inta uu halkaan ku joogana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si fiican u soo dhaweyno uu markaas si uu hawshiisa u wado.